الله على سيدنا ونبينا محمد. الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال halkan aan ku sugannahay waa magaalada Habaas oo qiyaastii u jirta magaalada Xariirad 15 kiiloomitir sidoo kalena 10 kiiloomitir ka soo xigta koonfur magaalada Cabdulqaadir. sida aad wada socotiinba magaalada Habaas waxa ka socday mashruuc dhisme oo lagu dhisayay masjid jaamaca magaalada Habaas oo lagu magac daray Masjid Bilal bin Rabah. Daawadayaal hadda waxa ila jooga sheekha كمسؤولك قارنك مجالدا أباس مساجدك إسلام مركنا إمامك مساجدك وشيخ حسين جيست لدينا عن واحد تاجن مؤذنك مساجدك دعاء علمي أقرار أنت هنا قالين هل إن بالتفاصيل واحد نكون رينا أنا جو محمد عوالة ظاهر مساجدك أباس وحي مجد دقيقة كل دون دقيقة أو أي كلمة أي ولا لها تلك دبديسة أنا جو محمد عوالة ظاهر هان waxaan ku soo hagaajiyay sheekha masaajidka Bilal bin Rabah bismiisa iyo ay soo dirtay Allah ka jaaisiye marwo Fuusiya Yusuf Roble oo ah xaaska dane Ali Shardi Amir Xabsade ee degan dalka Edmonton gaar ahaan wadanka Canada Fuusiya iyo asxaabteeda oo $100 iska soo ururiyay $100 waxay ahayd transportation $100 waxay iga gudoomay Sheekh Xuseen sidoo kale waxaan la igu soo hagaajiyay $200 Mareykanka oo ka timiday dalka Germany isla markaana uu igu soo hagaajiyay Allah ka jaaisiye Rashid Qalib Giri oo kamid ah qurba joogta degan dalka Jarmalka waxa inta dheeraa waxa la igu soo hagaajiyay oo kale $100 oo ila soo hadlay Xaaji Umar Cawaalad oo degan dalka Mareykanka waxaanu ii sheegay inay soo dirtay marwo kamida dadka qurba joogta waxaan ka xumahay aan ka cudur daaranayaa inuuna magaciisa sheegin lacagtaas waxa isku noqonaysaa $1300 oo iga hayo Sheekh Xuseen laguna sameeyay masaajidka lacagta oo horeysay $1000 waxa soo diray bil iyo bar ka hor $100 ee transportation ka marka lagu daro waa $1400 waxaan hadalka uga baxayaa Sheekh Xuseen bal si uu isagu u soo koobo inta iyo wixii kale tafaasiil ee loo baahan yahay marka koobaad Ilaahay baan mahad celinayaa marka labaadna waxaan mahad celinayaa walaalaha gargaarka ka geystay masjidkan hawshiisa aan ku jirno Masjid Bilal Al-Habaas oo dhiskiisa imika uu socdo adarkiisina halka uu marayo halkii aan ka bilaabnayna kulli wax badan waa shaacino waa la ogyahay inta Maxamed Cawaale uu soo sheegay waa ka gudoomiyay waxayna gashay diskan bay gashay masaajidka in badan oo walaalahana wax gargaar badan baa naga soo gaaray ma soo wada mari karno imika magacaantooda ma soo wada xusi karno iyo midada ay kala laakiin ma soo wada xusi karno haddii aan tusaale ahaan u soo qaato waxa ugu horeysay $2,000 oo markii aan bilaabayno hortaba laman ku horeeyay aan sameeynay seeska aan jeexaynay naga soo gaadhay walaalad Allah ka jasaayay joogta wadanka Mareykanka taas ugu horeysay marka calaayo kulli xaal markii labaad imsa kun baa dalku timiday markii labaad waxaan kula sheegi karaa raqambayntii ay ka gashay gargaarka walaalahayna soo gaareen masaajidku waxa uu maanta marayaa kharashka galay amba ha noqoto tuulada iyo deegaanka iyo wadanka gudihiisa amba qurba joogta walaalaha waxay nagu soo caawiyeen gargaar ka geystaan ha noqoto waxa uu marayaa $20,000 wax yar ka dhiman yihiin adigu lambarka sheeg 19,000 iyo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad markii labaad daba soo joojintii waxay $1,000 bilowgii bay $4,000 marka la isku wareegayo waxay gashay sarookiintii ilaa ashnaashka talbiistii
iyo albaabadaha iyo daaqado xadiidan ka wada dhignay intaa waxaa isla qaadatay $2,690 hagoogii qudisaarkii jiingadii wixii aan xaggan isku deegaysan iyo wixii walaalaha naga soo gaadhay waxaa isla noqotay $4,150 waxaa isla noqotay $13,000 wixii naga soo gaadhay walaalaha weeyaan dibadda ah walba joogta wixii naga soo gaadhay $13,096 intaabay total isla tahay iminka maalmahan wixii kharashkii waa isla go'ay waa la isla soo fadhiistay shaqadii iyadoo meel macaan maraysa ayuu kharashkii go'ay sibilkii go'ay waxaan amaahanay markaa sibil isku gaadhaya iyo hawshii inta farsamo yaqaanada ay gacanta ku hayeen lacag waxaan amaahanay waxaa isla noqonaysa shalay maanta markii lagu daro $800 ayaa isla noqonaysa haddana nagu leeyahay marka waxaan maanta gacanta ku haynana ma jirto haddii gargaar dhaqso aan heli weyno haddee bulshadiina waan ka soo gacan dhacnayo waa ka itaaroonatay hawshii aqalkoodii hore ee carada ka samaysnaa amba masaajidkii hore carada ka samaysnaaba markii dhooqada ka samaysnaa baan ujeedaa markay dabiishu dumisay anagii dayac tiri kari weyneed walaalaha u qaylsanay marka ilaahay intii ka sugay ilaahay baan gargaar marka hore ka sugaynaa marka labaadna walaalaha waxaan ka codsanaynaa sida ay maanta quruxda ay muujiyeen iyo gargaarka ay fiican inta hore uga mahad celinayno inta dambana inay la dhamaystiraan masaajidkii oo nuuro maca muraayad nuuradii wax walba dhamaystiran in aan saxaafadda gelino waxqabadkoodiina aan muujino mar walna waxaan ballan qaadaynaa wixii walaalaha naga soo gaadha inuu naga khasaarin maadaama anagu muctaad u nahay masaajidka dhismihiisa in aanan naga khasaarin si fiican waxaan ugu maxamed cawaale waan ka guddoomay intaa caraba ku soo dhiftay mar 1,100 ah oo boqolkii transporta ku baxay اللهم صل على الله بقول عمر iyo $100 عمر 1,300 hawsha halka inay marayso masaajidkii waa dhamaysay kale albaabada xadiidan ku xilnay dushii jingadii way saaran tahay duruufkii wax yar oo xagga hore ah wajiga hore ayaa bila talbiisa intii kale way dhameystiran tahay jingadii way saaran tahay way hagoogan yahay alxamdulillah maanta jamaacadii waxaa lagu tukaday harka waana loo duceeyay walaalaha waxaa tallaabada xigtay inaan qaadna aan doonayni waxa weeyaan bannaankii oo bilaa shuba bilaa sibil ah sibil ma hayno kharash ma hayno dhagax baa dhex yaal markaa buuxin badan sibilkii wixii wax lagu qaban lahaa inta waa loo baahan yahay waxaa kaloo tallaabada xigta ah اللهم صل على محمد بلفون كي يا كحيجا مركا هالكاس على السوق مناردي ديركي بركدي سوليدي كبينة يلعب وحيو حلميدا أيها هديت كسي حاجة نوردي رنجي أنت صل كال صالك السوقانية يحيى نقب صومنا ووحس مساجد كمية الكيسة هدي أن هربنا ونوش يعني ما أنت هذا كسو عليو مساجد كسيدا طول كوحوي هاي 14 متر عرضي السنة واللبية 8 متر مساجد markaas sidaas ay masaajid ballaaran oo masjid jaamica weeyaan rag iyo haween ay ku wada tukan karaan oo lagu wada tukado jamac badan la tujinayo weeyaan alxamdulillah inta hadalka inta ay hadhay waxaan u mahad celinayaa intaan hore ugu mahad celinaa inuu ducaynayna khayr Allah siiyo wariyahana waan u mahad celinayaa si aad iyo aad ah hadalka wixii hadhay waxaan uga baxayaa muadinka xaaji ducaale cilmi anigu xaaji ducaale cilmi waa dhankii masaajidka hawsha masaajidka dee waad u arkaysa adiga ku dhaada ayaa arkaya sidii aan ka bilownayna horey baa loola socday maantana halku maray waa la arkaa kolley waxa ay indhuhu arkayaan baa wax walba markhaati ka ah marka waxaan leenahay jazaakallah intii maarta muruq iyo maalba ka geysatayba allah ka jazaa'isiiyo ayaanu leenahay dabada ma joogo amba dalka ha jooge waxaan rajaynaynaa inta yar noo hadhay israacin insha Allah ayaan xagga rabbi ka rajaynaynaa allahana hawlaha inoo wada fududeeyo sida ay naxariis iyo dambi dhaaf baan ilaahay inoo weydiinaynaa assalaamu calaykum aad baad ma santii sheekh Xuseen anaga lafteedu saxaafadahan maxamed cawaale daahir waxaan isku dayaa insha Allah inaan ka qayb qaato dhinaca kitaabta insha Allah arrinkaasna waxaan doonayaa diiladaa inaan ku dadaalo shakhsiyan meel baan rajo fiican ka sugayaa kutub macallijis quraan iyo 30 jis iyo jis walba inaan keenan rajaynaya wareegaygan ma gabadhoodii wadooyinka sugaynaa waxa